bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada shabakada somcoders qaybteena waxaynu ku qaadananaa project yar oo ah marna inuu passwordka qariyo marna passwordka inuu tuso sida website-yada intooda badan aad ku aragtaan. marka ugu horreyn waxaynu kusoo bilaabnaa blank project halkan ayaynu input type ku samaysanaa kabacdina waxaynu siinaa id qiimaha ayaynu siinaa password ayaynu gelinaa soo wakaas haddaynu marka halkan ka dhigno password waa ujeedaan inuu halkan waxay noqonaysaa password. sidoo kale waxaynu kusoo darsanaa button yar oo ah show hide marna iga qari marna i tus passwordka. id ayaynu sameynaa isagana waxaa la dhahaa password toggler magaca dunta u bixin karta toggle waxaa la dhahaa marna ina wixii ay soo baxaan marna qarisid soo marka waxaan rabaa aan ku dhufto inuu marna i tuso passwordkii marna iga qariyo. id-gana ayaynu qaadanaa marka ugu horreyn password togglerka oo ah butankii waxaan dhahnaa let password toggler oo ah butankeennii waxaan isticmaalnaa query selectorkeennii oo aynu hore usoo dhiganay id-ga la dhaho waxaynu qaadanaa password toggler saynu u tijaabino event ayaynu kusoo daranaa marka waxaan dhahnaa password toggler add event listener eventiga magaceedii click ayaynu inta badan naqaanay halkan ayaa eventiga kusoo daraysaa function ayaynu gelinaa anonymous kabacdina waxaan leenahay alert ready saynu u tijaabino butankeena click to ay shaqaynayso intaad wax kala gelinba horta waxaa la tijaabiya waxa ugu yara ku shaqaynaya soo haddaan ku dhufano ready wuu shaqaynayaa. sidoo kale waxaa inta badan aad arkaysaa functionkan in laga dhigi karo bannaanka la dhigi karo oo function naming la isticmaali karo meesha aynu anonymous ka isticmaalinay oo aynu dhihi karno functionka magaceedii toggle tusaale ahaan kabacdina halkan aynu uga yeeri karno toggle functionkeeni la odhan jiray. marka qaabkana waa function declaration ayaa samaysay anonymouska ayaa ka tagtay waynoo shaqaynaa same. sidoo kale haddaan tan comment ka dhigo waxaa arkaysaa marka qaarkood arrow function iyadoo la gelinayo la leeyahay sidan oo kale. marka qaabkana haddaad aragtid waxa weeye waa same alert ready oo arrow functionska waxaynu kusoo qaadanay casharadeenii hore haddaan click siiyo ready. marka haddaa qaabkan aragtidna waa arrow functionisku marka return ma baahna automatic return ayay sameeyaan. aynu kusoo noqono haddaba functionkeeni caadiga ahayd magaceedii toggle tan aynu commentiga ka qaadno. marka waxaynu rabnaa inaynu inputkana soo qaadano valuegeeda password tan aan duplicate garanaya visual studioga waxaan qabtaa codeka alt shift ayaan qabtaa waa duplicate kan waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan input password wax magac macna kuu sameynaya loo bixiyaa si aad u garatid id-geedana waxaa password marka waa inputkii passwordka xambaarsanayd. so waxaan leenahay marka lagu dhufto intaan yaraan ka saaray marka lagu dhufto toggle waxaan rabaa inay tustid bal inputka typekeeda bal itus baan leeyahay oo console.log ayaan leenahay sa u fahantid wixii safe ayaan leeyahay inspect element ayaan leeyahay control shift I markaan ku dhufto console.log input password ayaa la dhahaa magaceeda safe ayaan leenahay markaan ku dhufano waa password haddaan ku dhufto waa password laba jeer ay soo baxaysaa. marka halkan ayaan ka ambaqaadaya waxaan leeyahay haddii input typeku uu la mid yahay laba calaamadood baa isticmaalaya equal oo identical leeyahay password waa ternary operator waa sidii ifti oo kale kabacdina calaamad question mark ayaan leeyahay spaceku wax dhibaato ma keenayo input typeka waxaa ka dhigtaa baa leenahay text. markaan hal equal baa isticmaalaysaa waa assigning haddii kalena input typeka waxaa ka dhigtaa oo kusoo celisaa passwordkeedii safe ayaynu leenahay soo waxaan leenahay show wayna tusay waynu qarina si aad u ogaatid xataa consoleka ayaa isticmaali kartaa typekeeda mar walba consoleka soo qor soo haddaan ku dhufto waa ujeeda waa password haddaan haddana ku dhufto waa text. sida caadigaana projectigan uu shaqanaya show hide that's great. waxaan kaloo isticmaali karnaa qaab kale oo ah marka aan click saa ugu qabto inuu ina tuso oo website-yada qaarkood isticmaalaan markaan ka qaadanayo inuu barteeda ku celiyo oo aan clicktan bakadeynaba waxaan leenahay mouse down waa markaan saa ugu qabto weeye. marka intan oo dhan waa ka takhalusayaa waxaan leenahay haddii aan mouseka ku gujino text ka dhig safe magacana waa ka bedelaynaa si aynu wixii u fahano waxaan leenahay show password baynu u bixinaa functionkeenan show password ayaynu u bixinaa waa show keliya qabanaysaa marka markaynu saa ugu gujino waa show laakiin markaynu ka qaadno waxba dhici maayaan
marka event kale aynu kusoo darsanaa duplicate ayuu leenahay mouse up aynu markan isticmaalaynaa oo ah release-kii markan waa press-kana waa release kan waxaan leenahay hide password halkana function kale oo hide password la dhahay aynu samaysanaa show password sama jirin waa hide password iyadoo kaliya waxay ka dhigaysaa password ay ka dhigaysaa marka haddaynu saa ugu qabanno waa show haddaynu ka qaadnana waa hide that is great marka idinka waxaan idin dirayaa haddaba inaad batanka yara bedeshaan assignmentiga ayaan idin dirayaa markaan saa ugu gujino batanka inuu isbedelo markaan ka qaadana inuu isbedelo aad iyo aad ayay u mahadsantihiin وبالله توفيق